Waxaa macquul ah dad badan in aysan ogeyn sababta ka dambeysay in la sameeyo mashiinka orodka. Mashiinka orodka oo maanta caan ka ah xarumaha jimicsiga iyo guryaha dad badan oo caan ah iyo kuwa aan caan ahayn, wuxuu leeyahay taariikh xiiso badan oo soo bilaabatay qarnigii 19aad. Waxa ugu horreyn loo alifay ma ahayn in caafimaadka ama jimicsiga loogu adeegsado, balse taa beddelkeeda waxaa loo sameeyay markiisii hore in maxaabiista xiran lagu ciqaabo. Sanadkii 1918, nin Ingiriisi ah oo lagu magacaabo William ayaa naqshadeeyay nooca ugu horreeya ee mashiinka orodka. William wuxuu arkay in maxaabiista lagu ciqaabo si wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo farsamo adag oo ka dhigaysa in ay xoog isticmaalaan si ay tamar u abuuraan. Mashiinkan oo lagu magacaabi jiray treadmill wuxuu ahaa dhismo weyn oo giraangiraha ku wareegaya, maxaabiistuna ay cagaha saaraan oo ay isku dayaan in ay horay ugu socdaan. Tamarta ay abuuraan waxaa loo isticmaali jiray in lagu shido mashiinaha warshadaha ama in lagu buuxiyo haamaha biyaha. Inkastoo mashiinka uu ujeedkiisu ahaa ciqaab, waxaa sidoo kale la ogaaday in uu si lama filaan ah gacan uga geysanayo xoojinta iyo kordhinta adkaysiga maxaabiista. Nasiib darro, dadkii isticmaali jiray mashiinkan waxay u nuglaayeen daal badan iyo dhaawacyo. Qarnigii 20aad, gaar ahaan sanadkii 1950-yadii, ayaa isbeddel muhiim ah ku yimid ujeedada mashiinka orodka. Nin lagu magacaabi jiray Dr. Robert oo ahaa dhakhtar Mareykan ah ayaa naqshadeeyay nooc cusub oo mashiinkan ah. Waxa uu ku daray matoor koronto ah oo ka dhigaya inuu si joogto ah u shaqeeyo. Mashiinkan ujeedada Dr. Robert waxay ahayd in mashiinkan loo adeegsado baaritaanada caafimaadka, gaar ahaan kuwa ku saabsan caafimaadka wadnaha iyo sambabada. Intaa kadib, mashiinka orodka wuxuu noqday qalab muhiim ah oo ka caawiya dadka in ay qiyaasaan awoodooda orodka, inta uu gaarsiisan yahay garaaca wadnahooda, iyo heerka ay jir ahaan u caafimaad qabaan. Markii la ogaaday faa'iidooyinkiisa dhinaca caafimaadka, shirkado badan ayaa bilaabay in ay horumariyaan mashiinada orodka si loogu adeegsado jirdhiska iyo caafimaadka. Sanadkii 1970 wixii ka dambeeyay, mashiinka orodka ayaa noqday qalab caalami ah. Dad badan oo doonaya in ay guryahooda ku sameeyaan jimicsi gaar ah oo ku habboon ayaa bilaabay in ay iibsadaan mashiinada orodka. Sidoo kale, xarumaha jimicsiga ayaa sii kordhiyay adeegsigiisa, isagoo noqday mid ka mid ah qalabka ugu isticmaalka badan ee lagu horumariyo caafimaadka guud. Maanta, mashiinka orodka waa mid casri ah oo leh tiknoolajiyad horumarsan. Noocyada qaar ayaa leh shaashado lagu daawan karo inta aad jimicsiga ama orodka ku jirto. Sidoo kale, waxay leeyihiin qalab cabbira garaaca wadnaha. Mashiinka orodka waxa uu kaalin muhiim ah ku leeyahay maanta bulshada iyo tiknoolajiyada ugu adeegaan baahiyaha aadanaha ee isbeddelaya. Sidaas darteed, mashiinka orodka waa tusaale cad oo muujinaya sida hal-abuurka iyo cilmi baaristu ay ugu adeegaan nolosha aadanaha.